waqtigan maanta aynu joogno dad ayaa Sacuudiga u arka dal tiirka Islaamka ah iyada oo xaqiiqdu ay tahay taabil cagsigeega caalamka ma jiro dal sida Sacuudiga oo kale sabab u ah hoos u dhaca iyo bahdilka muslimiinta waliba hormuudna ka ah waqtigan waa dalka kaliya ee diinta u adeegsada hab siyaasadeed si ay culimadu ugu tilmaamaan go'aanada ay boqortooyadu qaadanayso mid xalaal ah waxa jira ama uu leeyahay culimo waaweyn oo caalamka laga yaqaan gaar ahaanna wadamada muslimiinta laakiin asalkooga ah wasiiro xillo magacaabay tusaale haddii aynu soo qaadanno Cabdiraxmaan Sudaysi dadka aan aqoonta u lahayni dhageysiga codkiisa way ku qaldami karaan laakiin waa muftiga boqortooyada ee dadka aamusiya anta dad badani oo xaqiiqdiisa ogi salaad kuma daba xidhaan ee si gaar ah ayay salaadooda u tukadaan waxa qof daliil ugu filan Sacuudiga sida ay dadka qaar u arkaan haddii uu yahay tiirka Islaamka ayo cid laga ilaalinaya hareerihiisa oo dhan dalal ay muslimiin ku nool yihiin ayaa ku gadaaman oo joogay bilyanada dollar iyo diyaaradaha iyo hubka cid loo soo iibsanaya waa ayo xaqiiqadu taa way ka duwan tahay Sacuudigu waa dalka kaliya ee diinta sida daran u munaafaqeeya sumcad dilkana ku wada maanta laakiin waxa uu wadankani ku hoos dhuuntaa oo ceebihiisa loo arki laayay culimada daafaha dunida joogta waa isla isaga ka mishaarka u qora ee bisha siiya wadaad qaaradda Afrika jooga oo boqortooyadan Carbeed bisha mishaar ka qaata una xaadira oo dib la'aan wax ku hela suuragal ma aha mana dhacayso in uu wadankan wax ka sheego wadaadada qaarna waxa ay qaladaadka boqortooyadan u sheegi laayeen waxaba wax weyn u ah ay halka cilmiga ka soo barteen oo culimo halka joogtana ay is yaqaanaan ayaaba teetal weyn aan la duri karin ama aan la naqdi karin oo ah waxa uu Sacuudiga masaajidda ka dhisaa sanad walba daafaha dunida iyo dalalka Islaamka waxa uu sanad kasta daabacaa malaayiin kitaabka Quraanka Kariimka ah sababtoo ah imkaaniyaadkii iyo lacagtii ku baxayay ayuu haystaa iyo falalka foosha xun ee uu ku dhex jiro inta ayaa hoos u dhigaysa oo sidaa ayayna dadka intooda badan u daadanayn wabillahi tawfiiq